وجدي صور الصين وياهاي ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وchallenge-geeni maalintii labaad ee ku nadiifi gudahaaga 3 maalmood oo kaliya qudaar iyo fruit oo ka mid ah nimcooyinka Allah subxaanahu wa ta'ala arlada noo soo dhigay. quruxda dhabta waa gudahaaga haddii caafimaadkiisa aad ka shaqaysid banaankaagana aad iyo aad ayuu u qurux badnaanayaa. maanta waxaa noo wadaa waa cabitaankii labaad iyo challenge-geeni. daawo videoga bilaaw ilaa iyo dhammaad mahadsanid. alxamdulilah mar walbo allah subxaana watacaala ayaa mahadda iska leh. bismi illaahi alfataaxi alcaliim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaaliyaatu soo dhawaada kusoo dhawaada qalbi furan. haddii aan ugu cusubtahay soo dhawow kusoo dhawow qalbi furan. haddaa wili subscribe noo saarin fadlan subscribe noo saar, gambaleelkana furo sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco. asxaabteyda hore u joogteeda kan waxaa idinka codsanaya like-ta iyo sheerta inaan naga iloobin. dhammaantiina waa mahadsantiin inaa idin dhoone marnaba kama daalaayi kamana caajisaa. man laa yashkuri innaas laa yashkurillaah. waa maalintii labaad iyo challenge-geeni ahay gudahaaga nadiifi ramadaanka ka hor. ilaahay cimri caafimaad hanugu gaarsiiyo aamiin yaa rab. sidaa ujeedin cabitaankeena wuxuu ka kooban yahay 3 shay. haddii aan ugu cusub tahay oo hore aa u ogeen waxyaabaha 3 maalmood aa isticmaalaya dhan video waa kasoo duubay. sidoo kaleeto challenge-ga ugu horeeyay ama maalinta koowaad shalay ayay ahayd. cabitaanka waa soo geliya, haddaa soo daawanin soo daawo sida videoga ah oo la socotid insha allah biidnillahi kariim. sidoo kale waxaa idiin sheegayaa haddii aad waxyaabaha anigaa soo geliya ka heleynin waxaa sameyn kartaa halka nooc aa ka heshid isla noocaas ayaa 3 maalmoodba shiidan kartaa. balse aniga 3 nooc waxaa u doortay nooc walba markaaseti hadhow shaqooyin gaar ayuu jirkaaga gudihiisa ka qabanayaa. maanta marka maxaa noo wadaa, maanta waa maalintii labaad. marka cabitaankeena muxuu ka kooban yahay? runtii cabitaanadaneeti faa-iidooyin aad iyo aad u badan ayay jirkaaga siinayaan. gudahaaga caafimaadkiisa way soo nadiifinayaan, maqaarkaaga way ku dhalaalinayaan. haddana waxyaabo aada u fudud oo ka kooban ayaa ka sameyneynaa. meeshan waxaa ii yaalo karooto, tufaax iyo sanjabiil amaba carrot, apple and ginger. qof walbo sidii markaaseti uu u fahmayo hadduu ilaahay raali ka noqdo. waa ujeediin karotkeeni iyo tufaaxeeni iyo sanjabiisheeni ayaa inta noo yaalo. asxaabteeda waa soo dhaqayaa, waa soo jarjarayaa, waa isku soo laabaneynaa. karootada haddii aa waqti fiican haysatid waxaa sameynaysaa biyo iyo qal ama biyo iyo cusba ku radinaysaa. si fiican aa u dhaqaysaa, kadib inaa maqaarka ka fiiqdid uma baahnid, balse ani hadda waa ka fiiqayaa maadaama hore aan u radinin. insha allah tufaaxane si fiican aa u dhaqayaa, qubkiis waa isticmaalayaa. waa isla arkeenaa, isku soo laabanayna. asxaabteeda waa soo nadiifi, waa soo jarjaray sidaa ujeediinbo. waxaan isticmaalay 3 xabo karooto, 1 xabo tufaax iyo jab yar oo sanjabiil. sanjabiisha inta aa arkaysa dhan isticmaalin, jab yar leeka isticmaalay oo feeta camal adiga. waa kaas biyaa kusoo shuba, hadda waa shiidayaa. muhiim waaye inaad si fiican u shiidid oo markaaseti uu liisha u noqdo. ma miireeno cabitaanka, marka sidaas darteed si fiican ina u shiidid waaye. haddaa mashiinka cabitaanka caadiga haysatidne waaba kasii fiicanya, laakiin aniga hadda kan ayaa ku shiidayaa. kana ii fudud maadaama aad duubooyo. midkaaneti ayaa ku shiidayaa. bismillaah. bismillaahi maasha allah tabaarak raxmaan. asxaabteeda qaaligaa waa ujeediin cabitaanka sidaa quruxda badan ayuu kusoo baxay. ya kalarkiisaabuu ku deeqaayo. koowaa soo diyaarsada, hadda koobkeyga ku shubanaya. bismillaah. waa ujeedii soo rasiin u yahay maasha allah tabaarak allah. inaba caadi maahan, lagama sheekey karo. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك. أسحبتي ذا قلي وجدين
cabitaankeena sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay. waa rajeynaya idinkane inaad sameysan doontiin kana faa-iideysan doontiin. runtii ramadaanka ka hor muhiim waa qofka jirkiisa gudaha inuu kasoo nadiifiyo sida markaasiti ramadaankiisa si caafimaad leh uu ku dhameysto. ilaaha noo barakeeyo bisha rajab iyo shacbaan. ramadaankana cimriga caafimaad hanugu gaarsiiyo. cabitaanka marka caloosha oo maran ayaa fiican inuu qofka cabo. xilligaa rabtid waa cabi kartaa laakiin calooshaada inay eber ahaato oo markaas wax aadan cunin ayaa fiican. subaxdii ayaa ugu fiican qofka markuu soo kaco. shalay challenge-ga marka koob bilaabaye subaxdii waxaa cabay koob biyo qandac iyo malab. saaki weli wax ma cabin, cabitaanka keliya cabaya. kadibna waxaa soo diyaarsaday biyahan. maanta dhan biyahan cabaya. waxaa kusoo daray waa liin dhanaan iyo dhagiyare iyo huruuda freshka ayaa kusoo daray. mar walbo biyaha iga dhamaada waa kusoo darsanaya. biyo caadina waa cabi kartaa sidaa hore niigu sheegay, laakiin biyaha markaa dhadhan u yeeshid sidoo kale jirkaagana wuu nadiifinayaa, adigana waa sii jeclaanaysaa inaa cabtid. bismillaah. asxaabteeda qaaliga ah, cabitaanka dhadhankiisa lagama sheekeyn karo, aad u macaan yahay. tufaaxa ayaa macaan, sidoo kaleeto karootada way macaan tahay. sanjabiishana waxay siisaa caraf iyo dhadhan oo maasha allah keliya haddii aad jecleen culeyska aadka xoogaa karootada ku yareyso, sababtoo karootada markaa shiidid guruf badan ay sameynaysaa. anagana maadaama cabitaanka aan miireynin marka karootada xoogaa isaga yaray haddaa rabtid waa. laakiin saan aniga waxaa waaye aada oga helay. karootada waxay leedahay beta carotene, vitamin A iyo macdano. tufaaxane hal xab tufaax dhakhtar dhan ooga maaranaa la dhahay soomaan. vitamin C aa ku jiro, macdanaa ku jiro. sanjabiishana sidoo kaleeto faa-iidooyin aada iyo aada u badan ayay leedahay. dhiiga ayay nadiifisaa, waa xanuun baabi-iyo dabiici ah. maasha allah, ka faa-iideysi wacan ayaan idin leeyahay. haddii aad challenge-ga nala bilowday, maanta waa maalinta labaad berita keliya noo dhiman hadduu ilaah subxaana watacaala na gaarsiiyo. haddii aad bilaabine maanta ka bilaabi kartaa, beriyaa ka bilaabi kartaa, amaba 3 fikrad ayaa qaadan kartaa. 3 maalin adiga ku qaas ayaa markaas qaadanaysaa. iyo biyo aada iyo aada u badan ayaa isticmaalaysaa. waa ujeediin biyahayga inta igu diyaarsan yahay, sidaa oga caajisin koob le usoo qaadana maanta dhan waa cabaya. cabitaankana markaa cabtid kadib 30 daqiiqo kusug kadib le wax cun. asxaabteeda qaaliga waa rajeynaya inaad challenge-geena ka faa-iideysan doontiin. fadlan videoga sii sheer gareeya sida dad badan ay uga faa-iideystaan, adigana aad ajar oga heshid. oo ku mahadsan tahay daawashada videogan. haddii aa intaan nala soo gaartay daawada daacad ayaa tahay, aada u mahadsan tahay. jazaakallah kheyr ayaa ku leeyahay. inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano allah.